waxaan xasuustaa dhowr iyo 10 sano ka hor jamaaca magaalo ku baxday magaaladii markay ku baxeen dadkii way dhageysteen way la yaabeen waxay yiraahdeen war inninku dadkii wanaagsanaa ee masaajida camirayay baa tihiine dadka xaafadan degan ee salaada aanan tukan mid qaado jamaacada u geeya in odayaa yiri oday dariskayga oo 70 jir ah oo waligii salaad aan soo galin oo khamrigana aan habeen iyo maalin u kala saarin ayaa ila darisay hadduu igu kiin hadduu arkaano inila socdana dhib baa ay qabsane waa oday dhib badane aqalkiisa sheedan iniga tilmaamiye hay soo sheegin aniga waayahay wixii dhibaatay in soo gaadhana inkaas gaarsiin marxaba albaabkii bay garaacay waa shantii galabnimo isagoo hurdo ka soo kacay qorradii khamriguna miiska u dul taalo islaan male ilma male waa keligii buu nool yahay dhowr iyo 70 jir saa u qarqaraya way ag fadhiisteen albaabkii markuu ka furay inaan jamaaca nahay masaajidkan ka soo booqanay waa ku soo ziyaaranay ma ziyaaraha ziyaarada waan aqaanay u kaadiyo buuri qolkiibu ku noqday lacag buu soo qaaday ziyaaradii wuxuu mooday qoladii tariiqadaha ee suufiyadu barigo reeraa waa ziyaaradii shaqabale keena orange imku iska dhamaatay malayba ana xaqiiqa Djibouti imku iska dhamaatay xaqiina mooyaan imka ziyarada waxa isku badishay ilaahay dartiisa qofka loo ziyaaranaya oo waxa badishay ilaahay dartiisa ku soo booqano ku soo ziyaaranay waxa diyana kuma sidno waxa diyana kuma kaama doonayne khayrka jamaacada ka yar dhageysan wada dhageysanay markaas uu yaabay wardad lacag diida markay lacag ma qaadano wali inta noolahay waa qof lacag diida way ku weey maxaa tihiin ma anako adeer lacag ma qaadane laakiin waqtiga dadka ka qaadana waqtiga 20 milyan ma nasiin kartaa soo fariista lacag diida maana arkay buu la yaab ku noqotay mo khamrigan halkan ay taala jamaacadna halkan iska fariisteen indhaha ka qabsadeen xayraad anaku jamaacad waxaan martiya magaalada Hiblaayan ka imanay dadka muslimiintan ziyaaranaynay ka bukaan u ducaynaynay ka dhibaataysan baan ogaanaynay dadka waaweyn waan soo buuqanaynay dhalinyarada masaajidkan ugu yeedhaynay halkii hadalka markay uu furfurmay wax lacagna ma qaadataan ma qaadano oo lacagta ayay naga bixiya bil maali wa nafsi bil maali naftaydi maalkayga ku soo baxay ilaahay bay markaa kala hadleen cadamadiisi aakhiradii noloshii dambe qabrigii qiyaamihii u fikray markaa wuxuu hadalka adigu leedahay waligii ma maqal buuri waligii wax hadalka ila soo gala ma maqal buuri maxaad iga rabtaan adari sheeg lacag wad igu diideen wax kala sheegtay waxa ka rabnaa anagu laba qof aan nahay amiirkii iyo jamaacadii odayaashii miskiidkay joogaane inaad jamaacad u tagto waad soo salaantid bas intaas ka rabnaa ma intaas waan raaci darkii uu soo xidhay dhaladii khamriga halkii uu ka yimid qurradii la socdo shaadkii uu jamaacada u soo raacay wuxuu salaad ma aqaan waxa waxba male iska weysayso weysa ma aqaano kana ku ag fariisana sidoo sameeyo salaad ma aqaano kana ku ag tukane sidoo isagu u sujuudo rukuucan u rukuuc halka intii uu sameeyay ayay linear iyo muuzir iyo shaahid bay markiiba u dhigeen maqribkii baa lagu eedaamay dadkii xaafadu way daawanayaan odayga hebel baa maanta tabliiq miskiidka soo galiyay war tabliiq ma soo galin ilaahay baa soo galiyay yaa soo gashay la yahdi allah bika rajulan wahida khayrun laka min humr na'am ali nabigu markuu hadalka kulaha dagaal buu diray dagaal khaybar buu nabigu u diray inuu soo baabiyo yahuud laakiin nabigu ka daba hadlo wuxuu yiri ali ogow miya la dagaalama buu ka yiri lasleeda ay ka noqonayaan markaa buu nabigu ali dhageysa buu ka yiri mid iyaga kamidoo sababtaada ilaahay ku soo hadeeyo ayaa geeligiisa casas kaga khayr badan maqsuudka qitaalku waa maxay hidaaya looga dan lahaa hadday dadku iyakoona lala dagaalamin ay diintii ka dhageysanayaan oo diintii ka qaadanayaan dagaal meesha ma imanayo ugu dacwa muqaddam ala kulli shay dacwada ka horeysa wax walba jamaacadu waxay raadeen waranaku ma soo galine ilaahay baa soo galiyay daaya salaadii maghrib uu la tukaday bayaankii buu la dhageystay cishaayigii buu la tukaday cishaayigii intee soo kaxay bay miskiidkii keenaan haddana
salaadii fajar isagoo lugihiisa ku socdo masjidka soo galay toddoba maalmood isagoo salaadii laazimay dambigii ku jirana ka dhaxbaxay tiisii baa timid oo ilaahay waa ka manna qaatay wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakun baynahu wa bayna an-nar illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali al-jannati fayadkhuluha wa fi hadith nabi qala inta taakayn leeg markay naarta uga hadho ayaa ilaahay jalla wa ala qadarkii hore ugu qorna ayaa la hormarinay dadna acmaasha jannada loo weecin toddoba maalmood buu cibaadaystay sidaa baan la rajin ilaahay jannada ku galiyo laana khaatimad bay la hagaaji husn al-khatima wa shay ghaliya annaka jamaa bari annako khaarijina wadanada gaalada shisheeyaha ayaa la noo sheegay nin muslimo oo Soomaaliya laakiin meesha joogno wuxuu jiray 40 kilometer waa buuqanay in odayo daadiisa ku qiyaasan dhowr iyo 60 jir markaas uu jamaacada halkay ka timid xagga ay dalkii baan ka imanay maxaa u timaadeen dadka muslimiinta inaan soo ziyaaranay bas ajiib وخرج كي يعني قبحية بالمال والنفس وفيزها وطن كان لما هلا سيادكو هشين إلهي بابحية رزقا قادوي ما دالكن وادي من أما عزكو كالي ما دلكو كالي محاد دونا سانينك ده جماعات دي مسكيت كاسي جوغان إنا نرى عليهم دونين تهنو مسكيت حد ما تقابل حد معلومة كلنا صلاة دايدنا إلهي بأقبولي لكن مر هداد بري ما جوغتان واحدة ها ونيم بودي ذلك الصوماليا وركي سرباي صوماليا هي كاله صوماليا وركي سوالو سينا صوماليا اسلام نمدا نسعنا وموقته صوما افكا صومالي وحسينيا هي نمري شو نوي ميد مالنتي دمبه وان سو دhoweynay nasiib jamaacada waxa la socda oday markii istuhudeen dadka Soomaalidu markii istuhudaan mid qaraabadiisa isgarteen markaas war markii hebel adiga la oran jiray ha maxaad ka shaqeysay imika wadankan shaqo ayaa anaka noo dhiibanayay buu shaqo ma jirtee laakiin jaamacad baan dhigtay oo dalkii markii la joogay nin jaamiciyaad ahayde aqoonta ku dhimanad biirsataa maxay tahay bal ii sheeg wuxuu xiriirka labada dawladood dariska ka dhaxayaan bartaa علاقة بين الدول مركز وكير حرير كهذه إله نجد حما برتا مركز ولمي صلاة يدبوا قلب مركز حرير كهذه إله نجد حما برتا مركز ولمي بروفيسور هذا جامعة ده نيدجا حرير كهذه إله نجد حما كهلا يكون ما يقانن مركز سالقول حمد برن بالقول حديث كان ماذا مقال النبي يقول هي أعمار أمتي ما بين 60 و70 عمر الغالب كأمت يدبو النبي يقول وتضباطني لحنا انت أودا حيسا أذكر واحد لا دوري لحنا جربانا هي انتهت سنة لندن تابو كيلي صلاة يدينا واحد لا قلب حرير كأذي له نقد حيانا والضعيف كون وحكود دقنا وحاتر حرير كما بيقانان سيدي كلها تهيبو كيلي أو عقلك أجير رشد أجير هذا الكثير وبصير يا جماعات وتري لكن نكي habeenkii cishaay barkuu tukaday gurigiisii buu tagay salaadii fajr isagoo alaabtii wato jamaacada u yimiday wuxuu hadalkaad igu tiraada ma xalay ka seexan kari waayay hadalka xalay igu tiraadeen waan ka jiibsan kari waayay daaciga markuu ninku dad wanaagsan u raaco ummadda khayr u rajaynayo ummadda wanaagayga ka fikirayo hadalkiisa ilaahay wuxuu gelinayaa taasiir saameyn buu hadalkaagu yeelanayaa hada soo islaaxaya ummadan islaaxiga ka soo qayb qaadanaysa qaylada aan qayleyno ku badbaadayna inaan diinta ka wada shaqeyno wada niyooda insha Allah oo hadii la inaga dalbo inaan diinta u baxno waan baxayna wada istunfirtum fanfiru bunabiyyi habeenka jimcaha markaska ka soo qayb gala kulanka diineed bifadli Allah azza wa jalla habeenkii dhawada jimcihi baan u fiirsado masaajidku waa buuxsamaya hadii toole زماننا دعوته waxay soo martay xillihe
jamaacaddu miskiidka markay iska taagaan laga kala yaaci jiray maantana dacwaddu waxay maraysaa in maraakistii halkaa ay joogsato afka oo ijtimaacyadii markii la yidhi halkan baa lagu qaban 2 sano kadib meeshii yaraatay meel kalea loo guuray meeshii way yaraatay hadda annaga jabuuti waxaan maraynaa meeshii saddexaad ijtimaacii u horreeyey 92dii 200 qofaa ka soo qayb gashay 10 sano ijtimaacii miskiidka markii lagu qabtay magaaladii dhexdaa xidhantay miskiid kale weyn bay dawladdu ku deeqday dacwaddii haddana kiina uu xidhmay kiina waa laga baxay bannaankii magaaladaa loo baxay bannaankii magaaladana sanadkan 40,000 qof baa ka soo qayb gashay ijtimaaci 40,000 qof hargeysana waad ogtihiin war khayrkaa baa inoo baxaya khayrkaa ma ku darsanaa khayr haa dhahada dee dhegaysta diinada wanaagsan noqo shaqaale diinada wanaagsan baa ka sii fiican allah inagu anfaco الله إنه دم دافع وصلى الله على سيدنا